weli barnaamijka dabagalka wararka ayaa daawanaysaan. maalintii labaad waxaa xiran wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo muddooyinka u dambeeyay ku sugnaa deegaanka maamulka Soomaalida ee Ethiopia. halkaas uu tagay markii uu isbeddelku ka dhacay gudaha Ethiopia, gaar ahaan maamulka Soomaalida ee wadanka Ethiopia. madaxweynihii dowlad deegaankana la xiray, madaxweyne cusubna deegaankaasi loo soo magacaabay. wuxuuna ahaa shakhsi aad uga soo horjeeday hab maamulkii hore ee uu hogaaminayay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar. hase yeeshee wariye Cabdimaalig oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa gobolada iyo deegaanada kala duwan ee deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa lagu xiray magaalada Gaashaamo jimcihii sida wararka aanu ku helnay. haddaba sida xarigiisu u dhacay xaaladiisaba waxaan wax ka weydiinaynaa Axmed Warsame oo kamid ah waxgaradka Gaashaamo. telefoonka ayuuna hadda toos ugu jiraa. axmed, haddii aad maqli karto bal sida xariga Cabdimaalig uu dhacay faahfaahin naga sii. bismillahi raxmaani raxiim. walaalaad baad u mahadsantihiin. xariga Cabdimaalig siduu u dhacay, marka hore Cabdimaalig waa nin ka soo jeeda deegaanka Gaashaamo. deegaanka Soomaalida waxaa laysku haybsadaa marka la joogo caasimada oo kale. aduu gobolkiibaad ka tirsan tahay, qofku markaa wuxuu gobol ka tirsan u sheegaa degmadu kasii tirsan haybtiisa lagu gartaa. markaa wuxuu kasoo jeedaa gobolka Jaro, degmada Gaaramo ayuu kasoo jeedaa meelaha dega. ninka Cabdimaalig haddii aan faahfaahiyo, deegaanka dhawaan buu yimi bishii October. anigu Jigjigaan joogay markuu yimi. deegaanka aad baa loogu soo dhaweeyey. madaxweynaha ayaa dalbaday oo yiri degmada Gaashaamo ha laga soo qaado oo gaari u diray. fiican baa deegaanka loo soo dhaweeyey. waa nin wariye ah oo la yaqaano oo xuquuqda dadka magaranaysa u dooda iyo dadka aan dadkooda dhiiban karin iyo dadka fikradahooda iyo aragtiyahooda kala duwan soo tegiya weeyaan, oo meelaha magaranaysa ay ku habboon yihiin ama meelaha ay u dirayaan gaarsiiya. marka ninkaas waa ninkaa weeye. anigu shalayta meeshii laga qabanayo waan joogay ilaa la 3 maalmood meelahaas ku joogay Gaashaamo. markii ugu horeeyay uu degmada yaan waa la kulmo waan wareystay. wuxuu igu yiri ilaa 3 weyn baa laga yaabaa inaan degmada joogno. degmada baaxadeeda iyo population-ka ku nool iyo taariikhdeeda iyo waxyaabahaas laga yaabaa inaanu magaranaysaa aanu ka warbixino oo aanu ogaano. marka anigu shalayta waan joogay markii la qabanayo, meesha laga qabanayo waan joogay. waxaa la wareysanaya dad shacaba oo dumar iyo waxyaabahaas u badan iyo odayaal. marka iyadoo meeshii lagu urursan yahay oo goor ilaa 10 barsaxnimo meelahaas ay tahay ayaa waxa yihi ciidamada iyo booliska. kadib waxay dhaaheen joojiya. markii ay joojiyeen way u yimaadeen maxaa jira. waxay dhaaheen wararkan iyo waxaad duubaysaan bulshada iyo dowladda iska horkeenaysaan. hadallada maqlayay kamid ahayd. kadib waa la kaxeeyey 3 wariyo kale la socday. wax dhibaato looma geysanin. isaga weliba shirka hore gaariga ayaa la saaray, 3 wariye kalena dusha ayaa la saaray. halkaa laga qaaday waxaa lagu yiri aniga ma raacin, laakiin xerada new booliska la geeyey. adigu waqti kadibna waxaa loo gudbiyey xerada makalakaliyaga ciidanka militariga dowladda federaalka Ethiopia ayaa loo gudbiyey baa la yiri. anigu galabta waxaan u tagay salaadkii maqrib meelaha markii la eedaamayay. anada ciidanka militariga aan ugu tagay iyagoo fiican isaga fadhiyo iska qayliyo sharaab iyo biyo iyo waxbaan u geynay. waan wareysanay. waxay dhaaheen dadka iyagii u gudbiyay inaan wax dhibaato aan naloo geysan, aan iskana joogno arkayguna iska dhammaan doono. telefoonadii ehelkooda iyo xasiina siiyeenaan u gudbinay. marka intaan warka magaranaysaa ka haynaa waa intaa weeye. waxa kale aan haynaa markii aanu dee la xogeystay cidda warkan lagu qabanayay wariyaha iyo wariyaasha kale la socday. warka uu ka yimi nin la yidhaha Axmed Koore oo dowladii hore Cabdi ilay ahaan jiray, oo waladii raggii heegada ugu waaweynaa heegada hogaamin jiray ahaa. inuu subaxii la soo hadlay xubno reer Gaashaamooda. ninka afhayeenka baarlamaanka degmada Gaashaamo inuu la soo hadlay inuu yiri anaga waxa ii sheegay oo maantadan ii sheegay afhayeenka degmada Gaashaamo nin Muuse la yiraahdo ayaa aniga igu yiri waxa ila soo waaya ii wad Axmed waxay la soo hadlay buu yiri ninka aniga afhayeenka ii sheegay ninku Axmed Koore la soo hadlay baa maanta aniga ii sheegay anigaygan.
waaya marka ninka ayaa ka dambeeya ku yiri wuxuu yiri Axmed Koora subaxnimadkii hore la soo hadlay shalay intii aan la qaban ka hor wariyaha wuxuu yiri waxa la qabanayaa nimanka wariyaasha ee degmada Gaashaamo jooga waa la qabanayaa ciidanka makalakaliyaga qabanaya hadaa tiina qolada maamulka degmada Gaashaamo ka caawiya si loo qaban lahaa intaas uu igu yiri waaya waxaan ku weydiiyay Axmed marka hadda ciidanka federaalka ayaa gacanta ku haya Cabdimaalig waa sidaas oo ma ciidanka federaalka ayaa ku caanaya xerada ciidanka aniga ugu tagay salaadka maqrib markii la eedaanayay si fiican baa loola dhaqmayay wax dhibaato looma geysan way iska sharaabayeen way iska qaylinayeen wax dhibaato ma haysanin marka halkaas aan ugu tagnaano ma weydiiseen ma isku dayna la xiriirtaan madaxda deegaanka maamulka Soomaalida Ethiopia sida madaxweynaha iyo xubnaha kale oo aad weydiisaan bal waxa lagu haysto wariyaha iyo wariyaasha kale la socda anu warda shakhsi ahaan cid aan been magaalada la xiriiray ma jiro laakiin sida warka la sheegay ninka Axmed Koora la yiraahdo warkiisa ku hayay ragii waaweynaa heegada hogaamin jiray markii uu yiri waa nimankaas la qabanayaa ka caawiya in la qabto warkaasi inuu isaga uun ka yimi waliba uu sheegtay teetal khaldano aan lahayn oo yiri anuguna waxaan ahay la talinta madaxweynaha ay yiri ninkaasina aan ku ogeyn inuu la talin madaxweyne yahay markaas barnaamij isaga laftiisu waxaan ugu haysanaa inay ahayd iska horta shacabka iyo dowladda inuu ninkaasi waday oo warar aan kililkuna ogeyn oo magaranaysa kililka dowladda deegaanka laga soo laabsaday oo ciidamada federaalka uu isagu toos ula xiriiray inay ahayd un baan u fahanay hawshana ninkaasi watay imankana waxaa la leeyahay isagii inay taagantay ku kooban tahay markaan ugu horeysanay xogaha aan helay waxaa la leeyahay Cabdimaalig wuxuu doonayay in ay war ka soo sameeyaan oo ay soo baaraan dhacdooyinkii ka dhacay Gaashaamo iyo deegaanada kale gobolka Jarar dad badan la sheegay in lagu laayay marka arinta ma jirtaa ma idin kala hadlay Cabdimaalig aduu odayaal uu wareystay baa jiray wuxuu ka wareysanayay taariikhda degmada Gaashaamo xilli hore inay xitaa gobol ahaan jirtay odayaashu u sheegayeen saaxadda degmada u sheegayeen dowladdii hore iyo siday u dhaqmi jirtay u sheegayeen dhibaatooyinkii ay ka geysatay deegaankeeda u sheegayeen inay badan isbedel fiican samaysay hareeto qowl la sameeyey ummadda si fiican loo dhaqmay waxyaabahaas ay dunyano dad ay uga warramayeen Axmed Warsame aad baad u mahadsan tahay waxa uu ka mid yahay odayaasha magaalada Gaashaamo telefonka ayuuna igu warramayay isagoo jooga gobolka Jarar gaar ahaan deegaanka ama degmada Gaashaamo isla arimahan Cabdimaalig ayaynu ku guda jirnaa waxaanu la soconaa in isbedelka ka hirgalay deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan Ethiopia uu horseeday lana sheegay muddooyinku dambeeyay in xurriyadii hadalka dib ay u soo laabatay oo dadku ay xor u yihiin in ay aaraadooda gudbiyaan warbaahintuna ay si madax bannaan oo xor ah uga shaqeyn karaan deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan waddanka Ethiopia haddaba arrintan saameynta ay ku yeelan karto isbedelada ayaan eegi doonaa iyo dadaalada ku aadan in dib loo soo celiyo xurriyadii hadalka waxaa telefoonka markaan aan aadayaa dhinaca iyo jigjiga guuleed Axad Sheekh oo ka mid ah aqoon-yahanada deegaanka Soomaalida telefoonka ayuu hadda toos ugu jiraa guuleed waad la socotaa arrintan xariga Cabdimaalig waxaana la filayay in isbedelkan hirgalay uu horseedo in la hormariyo xurriyadda hadalka arrintan maxay ka dhigan tahay arrintan xariga Cabdimaalig Muuse Coldoon haddii aan kaaga warramo horta Cabdimaalig Muuse Coldoon waa shakhsi Ethiopiana waa suxufi Ethiopiana oo ahaana waxaa jirta waxa uu waddanka ku soo noqday oo madaxweynaha xasuumad ka helay 2 Oktoobar ee sanadkii hore markuu madaxweynaha xasuumadda uu ka helay muddo badan ayuu jigjiga tuugay hawshiisii suxufinimo ee lagu yaqaanay ayuu ninkaasi waday wax dembiya ama qalalaata uu wadayna ma jirin si lagu yaqaanay ee samafalnimada ayuu hawshiisii uu watay
16 bishan oo shalay ah ayuu gaashaamo tegey dabeetana waxaanu ku war helay in cabdimaalig muuse coldoon waa la xidhay waaye xariga cabdimaalig muuse coldoon waa mid aan horta aada u cambaarayn haddii aan nahay shacbiga dowladda deegaanka soomaalida waayo cabdimaalig muuse coldoon waa shaksi taariikh dheer ku leh dowladda deegaanka soomaalida ku nool oo xilligii dhibaatooyinka fara badan waa nin aada u dooday oo ka qayb qaatay kicitaankii dowladdii dhibta badnay ee dadka dhibta u geysatay waana sababaha keenay in uu madaxweynuhu ugu yeedho jigjigo si ilaa iyo xalkii uu kasoo galay oo gaashaamaayo waayahay guleed telefoonka ayaa ka go-ay dib ayaan qadka ugu laabanayaa si bal halka uu uga sii wado hadalkiisa waxaa dhinaca kale soo baxayey muddooyinka u dambeeyey in qabaa'ilka qaar ee deegaanka ay ka cabanayaan habmaamulka deegaanka soomaalida ee ethoobiya iyada oo aan weli isbeddelku si baahsan u gaarin guud ahaan bulshada ku nool maamulka soomaalida ee ethoobiya iyada oo dadka qaar ay iyo siyaasiyiintaba ay soo bandhigayeen arrimo ku saabsan in musuq maasuq iyo culaysyo kaleba ay deegaanka ka jiraan inkastoo weli aanay mas-uuliyiinta maamulku si rasmi ah uga hadlin waxaan ku laabanayaa markan dhinaca iyo guuleed waad og tahayoo isbeddelka guud ahaan ethoobiya ee ka yimid ama ka bilowday oo deegaanka soomaalida soo gaaray waxyaabihii muddooyin ku dambeeyey lagu bartay waxay ahaayeen in dadku ay xor yihiin aragtidooda ay si xora u dhiibtaan warbaahintuna ay si madax bannaan u shaqayso marka xarigan cabdimaalig miyaa lagu micnayn karaa in mar kale culayskii xurriyadda hadalka lagu hayay ee ethoobiya uu soo laabtay ha dabcan waa lagu macnayn karaa waayo waxaa saxaafadda xortaaba dee etoobiya markii isbedelka uu dhacay la ilaamiyo inay saxaafadda xor tahay in siyaasaddii la furfay oo nidaamka xisbiyada badan la qaatay oo aan dibna laysu caburinaynin marka xarigan cabdimaalig muuse coldoon dee waa mid intaaba ka hor imanaya oo waayo shaksi aan dhibaato wadin qalalaaso wadin bulshadii kicinaynin dee in xabsiga layska dhigo oo iyadoo aan wax dembiya lagu soo oogin layska haysto dee waa qayb caburinta ka mid a markaa dabcan waa la oran karayaa in ay horseed u tahay ama ay tusayso in qaybo weli ka mida dowladda etoobiya aanay weli la qabsanin in ay dee saxaafadda hor tahay oo qof waliba ra'yigiisa u xor yahay oo qofku haddii aanu dhibaato wadin aan dee layska soo xidhan karin waaya guuleed waxaa la leeyahay ciidanka federaalka ee militariga ayaa gacanta ku haya markii horena ciidamada liwbooliska ayaa soo qabtay haddiiba uu ku sugan yahay cabdimaalig kuna sugnaa deegaanka soomaalida oo maamul uu ka jiro ciidamo ay leeyihiin maxay tahay sababtan loogu gudbiyey ciidanka federaalka ee militariga etoobiya wallahi waa adigu markii la qabtay xataa laftirkeeda waxaa naloo soo sheegay iyadoo maamulkii degmada meesha ka jiray ama gobolkuba aan wax wara ka haynin in cabdimaalig qabashadiisa uun la bilaabay markaa taas waxa ay tusaysaa dee in maamulkii meesha ka jiray gacan dhaaf dowladda dhexe ay ku hayso oo ay qofkay doono xidhayso markaa taasu dee waxay noqonaysaa in waxay ka macno tahay oo kale meesha dawladi kama jirto waayo meesha maamul baa jiray maamul gobol baa jiray heerarkii kala duwanaa ee maamulkaa jiray dee qofkii dembi lagu hayo ila qofkii mar haddii aanu dagaalamaynin ama aanu qori sidanin ama aanu dad rabshad waday oo guruuga aanay ahayn oo amniga khalkhal ku ah dee waxaa ku filan hal askariya loo diro oo jeelka geeyo xitaa haddii uu dembi geysto marka wallahi ma garanayo anigu sababta keentay dee qof shiciba oo aan dhibaato wadin dee in guutooyin ciidana inta loo kaxayso in lasoo xidho oo la xidho marka waa adigu waa qayb waxay tusaysaa dawladdii dee t b l f ee shalay tagtay oo kale inay sideedii u yar eg tahay ficiladeedii way guuleed axad sheekh oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada jigjiga oo telefoonka iigu warramayey ayuu kaasi